السلام عليكم. qisada guusha babji qisada guusha lagu magacaabo qisada guusha ee soo dib ka dhacda waa muuqaalkeena maanta. nin afartameeyada cumrigiisa ku jira oo ku fashilmay wax kasta oo xirfada uu 40 sano soo diyaarinay. xaaskiisa ayaa guriga ka eriday, saaxiibadii ama asxaabtiisa ayaa xiriirka u jaray, dadkoo dhan way iskaga fogaadeen maadaama fashil badan yahay. laakiin si suuro aan la filayn ayuu 40 sano ee fashilka ahaa hal mar ugu bedelay guul fiida sare taabanaysa. aanu guuda galno qisada ninka. nin lagu magacaabo Brendan Green, nin u dhashay Ireland sanadkii 1980 miilaadiga, wuxuu dhameeyay dugsigiisa sare 1998. wuxuu waxbarasho ka bilaabay kuliyatul funuun Carabi waxa lagu dhaho ama Soomaali kuliyadda farshaxanka, isagoo ku rajo qaba in uu heer sare ka gaari doono farshaxanka. laakiin wuu fashilmay markuu dhameeyay kuliyadda dhaliilo loo soo jeediyay awgeed. wuxuu raadsaday xirfad kale, wuxuuna ka shaqeeyay graphic designing waxa loo yaqaano iyo programminta website-yada si uu u shaqaysto qutulyoomkiisa keliya. maadaama uusan waddankiisii guul ka gaadhin uu ka safray, wuxuuna aaday xaggaa ilaa iyo Brazil isagoo ka shaqo bilaabay photographer iyo nashqadaynta webyada sidii silimada. nasiib umuusan yeelan inuu taana sii wado, una ku guul daraystay midaasna wuxuu u jeedsaday dhinaca iyo muusiga. wuxuu alifay dhowr muusig clip, isla markaadiina uu fashilmay weliba fashilaad weyn. wuxuuna ku go'doomay gurigiisa isagoo aan cidna la hadlayn. sida wiil dhalinyaro ah oo jiilkii 18aadkii ku jira ayaa wuxuu isku dayay inuu cadhadiisa ku dajiyo video gameska waxa loo yaqaan. Green iyo video gameska waxay soo bilaabatay qisadoodu isagoo yar, isagoo ciyaari jiray ciyaarta loo yaqaano Atari 2600 ciyaarta loo yaqaan. wuxuuna awooday 9-adii inuu computer soo iibsado intii lagu jiray kacdoonkii Windowska. waxaa xilligaa uu ciyaari jiray ciyaarta loo yaqaano Doom. xilligii lagu jiray kacaankii internetka 9-meeyada wuxuu ku wareegay inuu ciyaar wadareedyo waxaa loo yaqaanaa multiplayers. ciyaartaas wuxuu joojiyey video gameska muddadii ugu jiray imtixaankii jaamacadda intuu ka guursanayay iyo weliba shaqo intuu ka raadsanay. markay adkaatay dhibaatooyinka guriga ka haysta iyo weliba shaqada darteed, faraha ayuu ka qaaday video games. waxay ahayd xilligaa mid ciyaarta armato daafaha dunida haysata. Grayna wuxuu ka faa'iidaystay fursadaas update-ka cusub, wuxuuna ku soo biiriyey kana dhimay meelo u baahnaa wax ka dhimis. kadibna wuxuu keenay fikrad kale ka dhigayo inay dadka ciyaarta dhexdooda isla ciyaaraan oo iyagu islaayaan. kadib fursado kale oo uu helay ayaa ka dhigtay nin ku faafay caanimadiisu caalamka gameska. waxaa soo jiidatay fikradda horumarinta gameska. maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu si kadiisa u daawaday filimka Jabaaniiska caanka ah ee loo yaqaano Battle Royale, isagoo ku saabsan filimkaasi koox arday ah oo dhexdooda islaynaya hal goomna jooga. fikraddaas ayuu isku dayay inuu filimka u bedelo video games. wuxuu la xiriiray shirkadda video gameska ee Korea ee Blue Hole loo yaqaano, isagoo u soo bandhigay fikradda, isagoo ciyaarta ka dhigaya hal fursad: ama waa inaad noolaataa ama waa inaad dhimataa. shirkaddu way ogolaatay, ciyaartiina waa la programming. waxayna suuqa soo gashay 2017 guulo waaweyn ayay xaqiijisay maalmihii ugu horreeyay. kadibna waxaa lagu soo shubay taleefanada gacanta. 60 cisho markay taalay suuqa waxaa la degay dad kor u dhaafaya 1 milyan oo qof. waxaa ka soo gashay Brendan lacag gaaraysa 200 milyan 4 bilood ugu horreeyay, ilaa ay ka noqotay ciyaartiisu ta koowaad ee caalamka loogu ciyaaris badan yahay. maanta nala wadaag fikirkaaga. adu ma aaminsan tahay odhaahda tiraada in allaha qad yucawiduka bishayin yunsiika kulla maa faataka? ilaahay wuxuu kugu magdhawayaa shay ku ilowsiiya wixii lasoo dhaafay oo dhan. videogana maanta intaas ayuu ku egyahay. dad channelka ku cusub tahay subscribe saar, videogana like saar. waa inoo videoga dambe.